soddon sano qof Soomaali ah ayaa macna darro u dhimanaya. soddon sano qof Soomaali ah ayaa macna darro u ooynaya. soddon sano qof Soomaali ah ayaa hurdadii la dilaa. soddon sano waxaan isku dilaynaa qabiil, reer, jufo. سعادي أنا أسعد من جدا أما أنا فرحت بسعادي صابرني بل ني قبيل كيس حرية بس حنايا ني قبيل كيسير لا تقاري أو جيت لو حري هرد مقويك تهادي قاعد كان لديلا يما أوجو سببته لو ديليو كان واحد ديلا أنا ما يقانا سببته وحود ديليو بل سيصدون سنة وحان كل حنول لهاي دادي ستيليا سببتنا أنقران إننا يسكو ديليان قبر أيان دوني annaga aan ahayn oo reer kala ah inkastoo reer ka sheegay laakiin qabiil kala aan qabiil kale yahay laakiin waleeytid laakiin si weyn khasba akhir oo khasb ku guursada meeshii uu ku dhaxdo waana weer caadi oo wallahi reerkaas reer laga guursada ma reer xumay waxa kama jiraan hadda waa reerkii ugu qiimaha badnaa Soomaali uguna fiicna reer gabuye wallahi reer ka fiican haddii la isu keeno Soomaali Maxamed oo dhan ma jiro reer ka fiican soddon iyo shan sano ma seexanin qabiilkayga ayaan ka seexan waayey sababta loo takooro hadalladaasi waxay hordhac u ahaayeen waraysi uu bixiyey fanaanka weyn ee Soomaaliyeed ee Daawud Xanfar oo dhawaan bixiyey waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya haddaba waraysigiisa waxaan ka dul istaagi doonaa waxyaabihii murugada ku reebay iyo sidoo kale waxyaabo kale oo bulshada Soomaaliyeed u baahan inay wacyigelin ay ku qaadato lagana gudbo maadaama Soomaaliya muddo ku siman 35 sano aynu ku jirno dagaal aan dhammaad lahayn bilowgiisuna uu yahay qabiil iyo reer fanaanka Soomaaliyeed Daawud Xanfar ayaa isaga oo si murugo leh u muujinaya xanuunka uu u qabo haybsooca joogtada ah ee beeshiisa uu ka soo jeedo lagula kacay madhibaan ayaa waxa uu gilgilay dhammaan boqolubta dadka Soomaaliyeed hadalka Xanfar ma aha kaliya tiiraanyo faneed balse waa qayladaan shuruuceed oo ka imaanaysa qofka ku noolaa culayska nacaybka qabiilka muddo nus qarni ah waxa uu su'aal galiyay sababta beeldhan loogu nacay waxa aysan galabsan loogana dhigay mid laga faano lana faquuqo Daawud Xanfar wuxuu tilmaamay in karti dadnimo iyo hibo uusan ka yarayn fanaaniinta kale balse magaca beesha uu ka dhashay oo noqday mid xukun ku ah meel kastoo tagana lagu xiro sumcad uusan dooran isaga tani waa dhibaato ka fog qof kali ah waa dhib guud oo ka dhex taagan bulshadan taasi oo jiilal badan wax ka burburisay kalsooni ka dishay horumarna ka hor istaagtay kumanaan Soomaali ah oo kaliya oo lagu nacay magaca qabiilka oo 30 sano iyo ka badan aan isku dilayno waraysigiisu waxa uu ahaa mid qalbi taabad leh isla markaana waxa uu ku waramay in xitaa loo diiday guurka gabdhaha madhibaan ayuu tilmaamay in ay ka darajo iyo meeqaam sareeyaan gabdhaha kale kana karti badan yihiin balse lagu xujeeyo qabiilka ay ka dhasheen taasi oo tilmaamay in murugo iyo xanuunba ay ku tahay qalbigiisa bulsho aan is aqbali karin is ixtiraami karin oo dadkeeda qaar la dulmiyo sabab aan diin iyo sharci iyo damiir midna ogolayn ma gaari karto horumar dhab ah waxa waajib nagu ah in aan jabino silsilada takoorka si aan u dhisno Soomaali dadkoodu siman yahay qofka lagu qiimeynayo dadnimadiisa ee aan lagu xugminayn magaca qabiilkiisa codka Daawud Xanfar waa in la maqlaa la garawsadaa la taageeraa sababtoo ah waxa uu matalayaa dareen boqolaal kun oo aamusan tani waa qiso aan dhammaad lahayn waxayna ku dhex nooshay kumanaan kun oo Soomaaliyeed qaar ayaa guryaha ugu xareysan haybsooc takoor qaar ayaa loo dilay haybsooc takoor qaar ayaa u dhimanaya haybsooc takoor welina waxaan ku sii jirnaa jidkii lagu sii jijibinayay qalbiyo badan madhibaan waxa uu tilmaamay in lagu takooray waxyaabo badan isla markaana xilalka dawladda xitaa ay ku yihiin kuwa ku liita sidoo kale waxa uu su'aal galiyay sababta loo takooraya beeshiisa ee madhibaan dhammaan su'aalahaasi waxay ka soo dhex maaxdeen fanaanka weyn ee Soomaaliyeed ee Daawud Xanfar oo kamid ah bahda fanka Soomaaliyeed haddaba bulshada Soomaaliyeed ayaan weydiinayaa su'aal ah maxaynu 30 sano isku dilaynaa maxaan 30 sano wiil iyo gabar isugu diidannahay qabiil ahaan maxaynu uga kori la'anahay caqligeenna ah reer hebel
taasi waa mid u taalla bulshada Soomaaliyeed. Waa maasantii saaxiibayaal haddaad ilaa ay intana la soo gaartay waxaan ka codsanaynaa inaad noo soo subscribe-gareysaan halkan isla markaana soo booqataan la sii wadaagtaan saaxiibadiina qabiilkana inaan iska dhaafno Allah ha nagu duwo.